السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada maalin cusub iyo waan iswada kram maanta waxaan rabaa inaan su'aalo badan aan la weydiiya oo waxaan cudurada maskaxda may kamid yihiin so marka waxaan rabaa inaan ka hadlo waxyaabaha oo cudurada maskaxda kamid ah iyo wixii si u kala baxsan yihiin so midda ugu horeysa inaan ogaano horta waxa waaye buugga oo laga fiiriyo cudurada maskaxda ugu yaraan 300 oo cudur ah ku qoran oo maskaxda ka mid ah marka marmar aad iyo aad u adkaa kartaa inaa qofka caadiga ah oo aqoonin waxyaabo ka aqoonin cilmiga maskaxda inay kala bixiso maxaa cudurada maskaxda ka mid ah iyo maxaa ka mid ah midda kale ha ilooban cudurada maskaxda markaa ka hadlayno waxaa jiraan waxyaabo oo cudurada oo waxa u sabab wax oo jiraan so like qofka haddii sinji camal ay u qabaan ama ehelka uu ku jiro qof oo cuduradaasi qabta sida cudurada oo masalan jirka sida markii laga hadlaayo sokorta ama dhiigkarka haddii familka ay ku jiraan dad qabaan way u badan tahay caruurta la dhalan inay cuduradaas laga helo cudurada maskaxda sidoo kaleeta waay waxaa kaloo jiraan cudurada maskaxda qaarkood oo bii'ada koos garayso ama environmentiga aan ku noolnahay marka cudur kasta aa aragtid ha isdhihin qofkaneeto sinji u leeyahay ama familkiisa cudurkaas qabo waxaana isdhihin environmentiga coach garaysa ma la ogaan karo qof oo cilmigaas wax ka barata oo specialist ah inay baarta waaye so basically shaqada anaga camal qaban aniga camal waxaa baarnaa ama aan faaknaa cudurkan muxuu qofka ugu dhacay maxaa u sabab ah oo keenay cudur oo bii'ada koos garaysa miya cudur ay sinji familku leeyihiin miya cudur oo meel kale muu kasoo galay marka ugu horeysa oo familka anayta cudurkan lagu arka miya so marka waxa waaye again qof caadi haddaa tahay oo ama specialist aadan ahayn ha isku dayan inaad dabagashid ama faagtid qofkaanayta cudurkan muxuu ugu dhacay mid kaleeta iloobina anaka dad islaam ahaanahay so qadar allah maa shaa facal ilaahay qofkii uu rabo inuu imtixaama cuduradana waxay kamid yihiin imtixaanaadka oo ilaahay dadka uu ku ibtileeyo so alxamdulillah calaa kulli shay so marka ugu horeysa rabo inaan sheego waxa waaye cudurada markii la hadlaayo waxaan u kala bixinaynaa kuwa waaweyn waaye mid kasta marka waxyaabo badana soo hoosgalaan maka hadlaayi mid kasta maxaa soo hoosgalo ba maybe example yaraan ku siinaa so midda koobaad waxa waaye waxyaaba oo mood disorderka la dhaho mood disorder markii laga dhahayo qofka haddaa mood disorder maqashid qofkaas waxay ka hadlaysaa ama depression ama bipolar labada cudur ugu waaweyn oo laga hadlo waxa waaye depression and bipolar mid kasta wuxuu usii kala baxaa faracyo kale usii kala baxaa soo masalan depressionka waxaa arki kartaa qof oo depressionkiisa mild yahay waxaa dhehaysa qof oo dhexdhexaad yahay iyo qof oo depressionkiisa zaa'id yahay heer depressionka wuxuu gaari karaa qofka heer ee isla hadasho depression dartiisa so bipolarka sidoo kale bipolar 1 iyo bipolar 2 ay u kala baxaan waxaa maqlaysa kelmadaha mania ama manic dadka isticmaalaan so mood disorder hadaa maqashid qofkan mood disorder ay qabtaa waxaa laga hadlayaa ama depression ama waxay qabtaa ama depression ama bipolar okay noocosiyaha masii kala sheegi karni laakiin labadaasee jid uu mid u kala baxaa midda kale anxiety waaye so anxietyga waa walwalka marka wax badan videohaadna waa kasoo beni also depression iyo bipolar videohaad horan kaga hadalna so dib ugu noqo haddii aarabtid inaa more ogaatid ama detailska oo waxaa inaa ogaatid cuduradaas anxiety walwal waaye anxiety yaa jirto waxaa jirta qofka waxyaabaha oo foobiyada dadka ay qabaan waxaa marka so dib u raactaasne laakiin anxiety haddaa maqashid walwalaa laga hadlooyaa noocyo badan u qabaa dadka oo bulshada ka walwalaan markaan dhahay generalized anxietyga dad oo waxaa jiraan oo waxyaabaha sirtan waxyaaba qaarkood ka cabsadaan like meel dheer inay koraan diyaarad inay koraan ka cabsadaan so taasaytana gooni waay midda kaleeto personality disorder waay so personality disorder markaa dhahayno waxa waaye qofka shakhsiyadeeda markay isdhaafsan tahay so run ahaantii horta igaraada ahaa si oo hadda kelmad fiican oo aan kugu soo jeediyo oo soomaali hadda maskaxdayda ku jirto like personality yani kelmada u aqaan waxa waa qofka shakhsiyadiisa so hadda kor waxaan ka hadalnay qof oo qabto dependent personality qofka oo qofka ku tiirsato oo maanta dhan qof u baahan leh inaa gacanta laga qabta leh inaa la hogaamiyo leh u baahan so qofkaas dependent personality nahna waxaa kaloo jirto qof oo aan hadda hore ooga hadalnay masalan narcissistic qofka isla weyn oo kibraaniga ah oo inay dunyada iyada le ku nooshahay ismoodo qofkaas waxa waaye narcissistic personality qof oo waxaa jirto borderline personality la dhaho
I believe video hore inaan uga soo suubiyo qofka oo waxa waaye markii qof oo ku fiican andan hal mar isbedelayso 360 degree aan dhahnaa oo wixii ay halhaas oo san dhisaysa hal haranta ku qaadayso oo duduminayso so waxyaabaha cudurrada maskaxda ka mid yihiin waxyaabaha oo badanaan waxay u badan yihiin again ama sinji noqon karaan ama environment ay cause garay karto so masalan cudurka oo borderline personality la dhaho dadka badankood oo laga helo dad oo waxa waaye cudurrada oo dhibaatooyinka oo waxaa la kulmeen trauma ama shoog hore usoo qaadeen ama argagixis badan lasoo kulmeen dadkaasiyto personalitygooda way isbedeshaa qof yani shakhsiyadood way isbedeshaa anyway midda kale waxa waaye psychotic disorder waxaa la dhaho psychotic disorder sida oo cudurrada oo waxaan ka soo hadalnay hadda ka hor schizophrenia psychosis waxay qofka markii ay heer oo wax gaarsiisan tahay like maskaxda ama inay isla hadasho ama inay dad la sheekaysato gudaheeda ku jiraan waxyaabo aan jirin ee aragto cabsi aan jirin ee ka cabsanayso taas cudurrada ugu daran waaye aan dhahnaa cudurrada maskaxda oo mental illnesska ama mental healthiga so psychotic disorder gooni waaye I believe video had inay jiraan so dib ugu noqo please so fiirso mid kale ee dadka aqoonin oo especially Soomaali haddaan nahay eating disorder waaye qofka markii dad oo waxaa jiraan aan u fiirsada ilmaheen inaan ka warqabno waxay important u tahay oo kale waxa waaye eating disorder ilmaha oo teenagerska aad u badan yihiin especially gabdhaha because environmentgeena you know mediada televisionka waxay barayaan inay qofka inay waxa yani ina certain like jirkaaga inuu si u okaado waaye ina يعني إنا لبناتي واي إنا قروح لجوج حسابي إنا عداتي واي إنا ساس هاتي واي so society جا أما مش أكونون هاي أو حي لسه قفك قروح سن سده وأكتها so قبل كستمركي يرتها إني ما كقاركود وحواي وقت أو حي كجران waxyaabo badan dhibaatooyin badan ee la kulmooyin because jirkoodii isbedelooyo weli ma ogayay yihiin intay u socdaan iyo yani maskaxdooda very clear ma aha so eating disorder waxa waaye qofka markii ay cuntadeeda ama iska goonayso ama cunto badan cunayso eating disorder waxay kamid tahay noocyada oo anxiety kamid tahay so qofka markii ay walwalkeeda badan yahay waxay raadinaysaa wax ay controli karto because waxay dareensan tahay wax kasto inay controlba lahayn inay power lahayn oo iska socota leh so marka maxaan controli karaa waay maxaa aniga controli karaa so cuntada way controli karaan waxay controli karaan mar ilmaha qaarkood especially again kuwa hadda soo korayaan teenagerska waxay suubiyaan waxyaabaha oo like inay isjarjaraan ama inay isgubaan ama يعني هذا دروغة عمل مركي وان كهدلينا دروغة ميدا كسي حكتا وايا هذا كهدلي دونه استعمال كذا إيه خمرقة وحواي قف كستو وحواي وحي رادينو سا وح كمقان لكن ميل إيه كيهش متقانا إيه سيدي وراتستو سو مركا وحيابو أو نفتيدي لباتو وكينا يقف كراعيسا سو substance abuse سيدا وحي كميتا عدرو مسكحدا دادك بدن كود أنا كهدان سومالينا هاي وما أرقنو qamriga iyo daroogada inay waxay yihiin cudurrada maskaxda waxaan u aragnaa inay kibir iyo edeb daro yihiin unfortunately maca alasaf waxa waaye substance abuse horto ama cudurrada oo daroogada iyo qamriga la isticmaalayo ama qabitiinka waxa waaye wax oo dhaxal ah so haddii family ku jireen dad oo isticmaalaan daroogo dad qamri isticmaalaan xataa anaga ma dareemayna haddii aabaha uu sigaar yacab yahay ama jaad cunow yahay sinjiya ku jiro familkaasayto so ilmaha waa laga heli karaa qof oo isticmaasho waxyaabahaasayto ma dhaha ay qasab waaye inay waxaa jiro familiyaal oo weligood sigaar cabin oo kasoo baxeen ilmo oo qamri iyo sigaar cabaan taasna waxaa u sabab noqon karta markaas camal bii'ada so mid bii'ada waaye oo dhalinyaro iyo dad oo waxa hadda ku xiran tahay waxyaabahaas isticmaalaan like peer pressure sometimes daqtiga waa laga dadka yani markii dadka meel ku jiidanayaan so maybe cunugaas inay la iska jiitaya dhici karto waxa kaloo dhici karto cunugaas inuu dhibaato la kulmay sida waxyaabaha oo again hadduu depression qabo hadduu qabo anxiety hadduu qabo wax trauma hadduu cunugaas la kulmay wiilkaas ama gabadhaasayto khamriga iyo daroogada qofka waxay u samaysaa
way iloosiisaa dhibaatooyinkooda iyo waxyaabaha guriga hadduu rabsho ka jiro camal ilmo badan oo waxaa arkaysa guriga buuq ka jiro gurigooda waalidka isdagaalayaan camal ama guriga marka cunuga taga inuu dareemeynin inuu meeshii oo nasashaanka ugu imaan lahaa inay tahay so markaas say is iloosiiyaan qamri iyo darooga isticmaalayaan so taasna way jirtaa anda mid ugu dambeysa aan raba inaan ka hadlo waxa waaye trauman hora videoga soo beenay waxa waaye argagixiska ama shooga qofka markay qaado so sida masalan qofka kaaractishada camal inay gasho waxaa dhici karta qofka haddii la xoogo waxaa dhici karta inaa qofka haddii oo masalan dagaalkii anaka aan soo marnay dad badan oo cudurka shoog cudur ku noqdaa jirta ama argagixiskaasita cudur uu ku noqday qofka haddii laga cabsi siiyo haddii ay sigato waxyaabahaas aan cudur isku bedeli karaa so haddii aad rabtid more inaad ka ogaatid cudurka oo traumada la dhaho ama argagaxiska video horaa jiro dib ugu noqo please ee soo fiirso so cudurada oo maskaxda kuwaas ugu waaweyn and then sida aan hore u sheegay hoostooda kuwa badan ay galaan iyo magacyo badan oo kala duwan sa aan hore u dhahay 300 cudur iyo magac ay leeyihiin cudurada maskaxda so kulligood ma sheegi karni laakiin waxaa important ah haddii cudur lagaa sheego inaad ogaa kartid haddii masalan lagu dhaho bipolar aa qabtaa inaad ogaa kartid taas mood disorder inuu yahay haddii lagu dhaho OCD aa qabtaa inaad ogaa kartid inay anxiety ama walwalka cudurada ah inay hoos galaan important ah أنا هذا كذا كسر ديرين وها أنت سيو wellness with إكرام هدي أسئلة كقبتت عذر هذا كهضلي يما سؤال specific قبتت وإيسو إيميل قرين كرتا إن شاء الله واسكود ضيا إن وده أنا كسر جواب وحي أبوده إن شاء الله بإذن الله وأنت سينا بتكليو إيو اسم خلطان بوحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته